inaa maqashayn in kala ma qaano xilligii horta samara lagu jiraa hawo walbo oo Mareykanka ka dhacdana waxay wadataa dhibkeeda markay hawadu fiicnaato oo qabowgu bo'o inta qabowgu markuu jiro ilmaha guryaha lagu cishaa inta badan markuu qabowga muxuu ahayto tago ciyaalku way soo yaacaan wiil Soomaali ah oo 10 sano ka jira ka yar ayaa xalay wuxuu ku dhintay meel war ah oo xaafada agteeda ku taalo ku dhintay markii ugu horreysay oo cunug Soomaaliya uu biyo intuu ku dhex dhaco uu ku dhintana ma ahan muddo hadda laga joogaa umaleena 2 bil adi way ka yartahay 2 bil horta bil inay tahay umaleena ama 2 bilna way ka yartahay wiil kale oo asna 17 jir ah ayaa wuxuu ku dhintay biyo oo Soomaali ah asagana marka waa cunugii labaad oo muddo 3 bilood ka yar oo muxuu yahay 18 sano ka yar oo Soomaali ah uu ku dhimanayo biyo waa aragteen xaafadaha muxuu yahay meelaha marka la degan yahay biya ku yaalo warara ku yaalo ciyaalku way ku ordaan way ku dhexdhacaan marka ilmaha horta malakamood cid celin kartaa ma jirto oo muxuu ahayto qof haday tiisi soo gashay tiisi ayaa soo gashay laakiin sida sunnada xitaa ku taalo qofku waa inuu leeyahay xirfad dabaal ah xirfadda dabaasha aad bay muhiim tahay waxyaabaha xitaa diinta lagu dhiirigeliyo ku jirtaa waxyaabaha meel walba oo cilmi kasta oo aad eegto cilmi caadiye iyo cilmi muslim iyo cilmi kaleetaba adduunyada hore iyo adduunyada hadda jirtay qof walba waxa la dhiirigeliyaa sidii qofka loo bari lahaa dabaasha annagana Soomaali haddaan nahay dabaal maba naqaanabo wadamadan la joogana meel walba waxa ku yaala swimming pool ayaa ku taala waliba ciyaalka bahasha lagu dabaasha ku taala guryahay ku wada taala warar yar guryaha lagu qurxiyaa ku yaalo muxuu ahayto meelasha moolasha oo la geeyo biya ku yaala iskuulada qaarkood biya ku yaala meel walba biya ku yaala ilmihii marka qof maanta dhan ilmo ma daba taagnaan karo oo wax la qalin kara ma ahan laakiin hadduu xirfadii leeyahay muxuu ahayto jaaniska ah inuu badbaado cunugaasi aad bay kor u aadaysaa dadka qaarkood muxuu ahayto ilmaha waxay baraan dabaasha markay sanad gaaraan waliba cadaanka ilmahooda waxaa dabaasha la baraa sanad muxuu ahayto markuu soo gaaro Soomaalidana waxaa u maleysaa inaysan ka warqabin marka wax inta badan ani shakhsiyan horta waxaan isku dayaa waxyaabaha ciyaalka iyo qoyska iyo ka hadlaayo inaan ka wareegto oo sababtoo ah qofka waxa xirfad u leedahay ama muxuu ahayd gaara ama experience u leedahay ama adi amartay ani waalid ma rabo inaan dhaho saan ilmaha u kariyo sababtoo ani waalid ma ahi marka inaan qof wixii u sheega ma jecli laakiin se wax laga daqnado waa ilmo yar wax la badbaadin karo waay meelo aad u fara badan waliba iskuulada markii la xiro ilmaha muxuu ahayto barnaamijyo badan ay leeyihiin meelaha jiimamka leh YMCA da leh muxuu ahayto programyo caadi ah buulal waxaa jira xitaa la furo xilliyada samarka ah muxuu ahayto buul yaa la furaa jiro oo lacaga laga bixiyaa ilmaha waa lagu la dadaalaa iskuulka inuu quraanka la baro waa lagu la dadaalaa sidii akhlaaqda loo bari lahaa waa lagu la dadaalaa laakiin xirfadda dabaashu waxay u dhaxaysaa life and death inuu cunuga noolaado iyo inuu dhinto siduu isku badbaadin lahaa ayay baraysaa ilmaha muxuu ahayd waa wax muxuu ahayd dadka kale way baraan diiniyan waa lagu dhiirigeliyay inuu qofka lahaado xirfad oo dabaala ah Soomaali anaga haddaan nahay dhaqan ahaan waxaan kasoo jeednaa baadiyaha dad magaalooyinka ka yimid way jiraan ani magaalaan ku dhashay laakiin ma aqoonin hadda dhow ka hor sida loo dabaasho wax yar waa kasi jiray markaan yaraa laakiin waadan baan bartay sida loo dabaasho lacagaanu ku bixiyay sababtoo ah berri meesha ku bixi doontid meesha ku dhici doontid meesha aad tagi doontid ma ogid haddii marka aad biyo ku dhex dhacdo inaad naftaada badbaadin kartid waa oo biyihiisa oga soo dhex bixi lahayd aad taqaanid wadankan muxuu ahayto dadka madowga ah aad bay ugu liitaan muxuu ahayto ilmahooda inay dabaasha baraan ilmaha intaad muxuu ahayto xisaab bari lahayd ama waxyaabo kale uu baran lahaa xitaa ani shakhsiyan waxaan aaminsanahay waxaa ka muhiimsan inuu dabaasho barto sababtoo ah dabaashu waxay badbaadinaysaa cunuga ilmahana waa lagu baraa muxuu ahayto asagoo yar oo 5 sano gaarina la bari karaa dabaashuna wax haddaa barato kaa dhumaayo ma ahan
wax weligiis kula soconaayo waaye weligaa waad haysanaysaa wax muxuu ahayd ilmahanagii markii war yaroo guri ah ku taala inay intay ku ordaan ay ku dhex dhacaan wax aad looga naxumaado waaye wax muxuu ahayd 200 ama 150 ama 300 dollar ay ku baxayso in ilmihii yararka ahaa ay u leedaan sababtoo ah ilmaha dad mas'uul waalidka asaga ka ah ilmahaagana sida u baraysid inuu hadhow qof muslim intuu noqdo inuu adduunkiisa iyo aakhiradiisa badbaado ilmahaaga waa inaad chance walba siisaa muxuu ahayd tahriib meeshaan ma biyaalo Mareykanka ani ka hadlooyaa wadamada qurbaha ah ilmaha biliis dadka waalidka ah ilmihiina dabaasha geeya dabaashu aad bay muhiim u tahay waxay la dhigan tahay oo kale inaad cunugaaga talaasho sababtoo ah cunugaaga cudura ka badbaadinaysa marka talaasho ma ogid cunuga yarka ah meesha uu aadi doono meesha ku dhici doono saadana samarkii ilmihii guriga lagu ma celin karo banaankay u baxayaan saaxiibadooda la ciyaarayaan way wareegayaan meelahaas ay aadayaan sababtoo ah qabow ma jiro oo baraf kuma dhacayo marka fadlan muxuu ahayto ilmaha dabaasha hala baro waxaan ka hadlooyaa dadkiina hadda soo galay cunug yar oo Soomaali ah oo ka yar 10 sano ayaa xalay wuxuu ku dhintay meel war ah oo ku taala xaafad muxuu ahayto nooradka ku taalo oo u dhow masaajidka Salaama ayaa biyo ku dhex dhacay ciyaal kale la socday xaaladuna waxay dhacday markii maghribka la tukanayay oo la adimayay agteeda dhacdaa la yiri muxuu ahayto cunugii meeshuu ku dhex dhacay markay yimaadeen muxuu ahayto kuwa oo dabdamiska ayaga ka soo saaray oo waxay ku qaadatay 4 daqiiqo inay cunuga meesha uga soo saaraan ayagoo waliba dadka diverska oo dabaasho biyaha hoostooda gala aan loo yeerin ayay kuwa dabdamiska caadiga ah ay ka soo saareen cunuga taas macnaheedu maxaa weeye cunuga meel fog kuma dhex jirin sababtoo ama dabaalan yaqaano biyihii sanbabada uga aruuray bii markay sanbabada uga arureen uu neefsan waaye dhaguu degay marka ilmihii meeshii marka isbitaalka loola cararay Nationwide Children's isbitaalka markii loola cararay maanta ku dhintaa leeyahay isbitaalka kaligiisna ma ahan muddo laga jooga hadda ma aqaan 2 bilood ka yar ayadana wiil 17 jir ayaa wuxuu ku dhintay Westerville oo Soomaali ah meeshii biyuhu ku dhex dhacay uu ku dhintay marka ilmihii in la baro waaye muxuu ahayto dabaasha please I can't stress it out inta ay muhiim say ugu tahay in ilmaha dabaasha la baro ilmaha dugsiga waa la geeyaa muxuu ahayto meelaha kale waa la geeyaa fadlan ilmaha bar dabaasha ilmaha dabaasha ha la baro ilmaha ha la geeyo meelaha dabaasha lagu barto YMCA da ciyaalka dabaasha barto muxuu ahayto iskuulada qaar muxuu ahayto samarka waliba markay tahay qoraxda soo baxday indhaha iga galoosaaba muxuu ahayto waxay bixiyaan barnaamij muxuu ahayto programyo oo dabaal ah oo xilli go'an socda oo waxay soconayaan 12 week miyaadi 2 bilood qaara socdo qaara muxuu ahayd 3 bilood socda intuu iskuulka xiran yahay Soomaaliya ilmihiina dabaasha bara fadlan waa idin bariyaa ani hooyami laakiin aadan uga naxay ilmaha yarka wax yar oo laga badbaadin karo oo muxuu ahayd hadii meesha uu ku dhex dhacay haduu dabaasha yaqaano waxa laga yaabaa cunugaas maanta ilaaha u qadarta horta malakamad cidna ma celin karto laakiin se xirfad waaye lama huraan ah inuu qofku leeyahay xirfada dabaasha meel aad muxuu ahayto tegaysid ma ogid meel uu ilmihii hadhowti weligiisna kama ay haraysa ilmaha xirfadaas hadduu 2 jir lagu baro muxuu ahayto 60 jirkay kula soconaysaa oo xirfad qofka ka guurta ma ahan weligiisay la soconaysaa jirkiisa bartay sidii muxuu ahayto uu uga badbaadi lahaa muxuu ahayto duu biyo ku dhex dhaco sidii uusan biyaha u qaadi lahayn oo ilmahaasi ilmaha dabaasha hala baro cunug ayaa xalay ku dhintay maalin dhaweetana wiil kala ku dhintay 17 jir oo magaalada Columbus ani intaan ka warqabo leh way gobolada kale xitaa ma aqaano laakiin Soomaali hadaan nahay anaga xoolo dhaqataan nahay muxuu dabaasha muhiimada ay leedahay muxuu ahayto ma naqaano dadka madowga ana sidoodaba muxuu ahayto ma yaqaanaan dabaasha muxuu ahayto Soomaalida markii la sii eega madowga la sii kalba bixiyo xitaa Soomaalidu way ugu sii dambeeysaaba barnaamijya jiro YMCA da ayaad muxuu ahayto bixiso ilmaha dabaasha hala baro cunugaas ayaan ka naxay dhimashadiisa
taas ayaan muxuu ahayd usoo galay barnaamijkanagii toddobaadlaha ahaa waxaan soo gelinayaa berito khamiista haddii alla idmo khamiis kasta saa iga barateen khamiista idiin soo gelinaa kii muxuu ahayto thank you ani xitaa waa idiin xiise kii muxuu ahayto toddobaadlaha ahaa beriyaan soo gelinaa laakiin waxaan rabay inaan ka hadlo ilmaha dabaasha hala baro please barnaamijyo fara badanaa jiro wax muxuu ahayto ilmahanaga wax yar oo la celin karo inay ku dhammaadaan waxaa looga naxa waaye dadkiina hadda soo galay 2 cunug oo Soomaali ah ayaa biyo ku dhexdhaceen oo ku dhinteen yes sahar abay maanta u sheeg waa mahadsantahay please waxa idin sheegayaa waxaan loo jooginaa meesha soo gelinaysaan marka waxa waay please ilmaha hala baro dabaasha ilmaha dabaasha hala baro muxuu ahayto asagoo yar aa lagu bilaabi karaa qofa hadaay wuxuu dhahay 2 jir ma lagu muxuu ahayto ma lagu bilaabi karaa waa arkay ilmo 2 jir oo la dabaalsiinay aniga laakiin ilmaha muxuu ahayto waxa geenaysa meesha dabaasha geenaysa qofa waa la tababarayaa qofa joogo asaga tababaraynin inaag wuxuu yahay qofka ilmaha meesha halagay wiili gabdhaw ilmaha yariiska halagay dabaasha si hadii lacalle intay banaanka u aadaan ee war yar ku dhex dhacaan ee uga soo dhex bixi lahaayeen aysan ugu muxuu ahayto maquuri lahayn oo ilmihii ugu dhimanin please ilmaha dabaasha hala baro sug meesha aan fiirnaa wixii su'aasha dabaasha sunno waa yes aaday sunno tahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxyaabihii uu yiri waaye muxuu ahayto qofka waa inuu leeyahay xirfadaha muxuu ahayto uu qofka intuu nool yahay inuu yeesho ee muhiim ka tahay ay ku jirtaa maxaa ku ogtahay asagoo hadhow markuu weynaado xitaa cunugii hadduu 20 jir yahay 30 jir yahay camal qof weyn intuu noqdo uu meel tago dabaashi iyo hooyadiis shalay soo bartay ayuu ku meel marayaa iyo aabihiis dabaashay soo bareen sababtoo ah iskuulka ciyaalka markii la geeyo iskuulkaas ay ku meel maraan waxbarashadooda muxuu ahayd akhlaaqda la baray diinta la baray meel ay ku maraan dabaashuna waa sidoo kale weligood kama harayso weligoodna way la soconaysaa muxuu ahayd waliba Mareykanka wax muxuu ahayd cudurdaar ama lahan qofkii ilmihiisa dabaal bari waayay literally ilmahaaga waxaad u geysatay dhimasho ah waliba xilliyada muxuu ahayd uu kuleelka jiro muxuu ahayd death muxuu ahayd ticket cunugaaga u jirtay ilmihii 24 hours isha kuma hayn kartid laakiinse muxuu ahayd haduu dabaasha yaqaano haduu biyo yar ku dhex dhaco asaa ka soo dhex baxaayo aan fiiriyo marka nalkii abadamay korontadii waxaa tagay qoraxdii meel hoos ka shaw maleena شهر أبا يقعلها ما في عنها سنة هون معان أبايو وما سنتها هاي مريان يس سدح جرا الوبري كراعية تري مريان سببتو aniga ayaa la shaqeeyay tiri muxuu ahayto ilmaha waa la bari karaa ayagoo yar oo 5 sano ka yar la bari karaa cunuga muxuu ahayto 5 sano wuu ka weynaa cunuga muxuu ahayto dhinta xalayto saqiir buu ahaa laakiin mid kale oo 17 jirna wuu dhintay asagana nalkale hadda iftiin oo tameesh sug maxaa yaa kale fardafuulka iyo dabaashaba bare yes labaduba sunno waaye labadooduba sunno waaye muxuu ahayto عمر أبو ويلي قبر محادا المها ما ويلي قبر لبضو ضب صنف ملها سببكم يالان ويلي قبر لبضو وبريسا ولا قبلها دار لو قليا جرو ولا شنو بومه هذا لو قلينا سببتو ويلي قبر ما المها كوكا لليهين يها لبضو المها إلا برواي الماء واي صقير واي إن محو هيتو هداد برتو دباشنا وراعيسا ولي قودي لسعونيسا كما هاريسو هدي بيير كود حدعان أديقو أو آذن أوغين muxuu ahayto way ka soo dhex baxayaan sababtoo ah xalayto cunuga markuu biyaha ku dhex dhacay laba cunug oo kale la socotay hadii xitaa labada cunug oo kale ay yaqaanaan way ka soo saari lahayn laakiin laftirkooda ka baqay biyaha
ayagiyaa ka baqay malihii ani ilmihii ha galaan biyaha laakiin cunuga biyaha ku dhex dhacay hadduu dabaasha yaqaano war yariisa oo xaafadda banaankeeda ku taala muxuu ahayto inuu ku dhinto waa wax aad looga naxo sababto hadduu dabaasha yaqaano inuu kasoo baxay badan sababtoo ah markay yimaadeen kuwa dabdamiska 4 daqiiqo basay qaadatay in cunuga laga soo saaro muxuu ahayto warta 4 daqiiqo basay qaadatay oo weliba xitaa mararka ay ilmuhu ku dhex dhacaan ama qof uu meel biyo ku dhex dhaco team gaar ah loo wacaa special team divers loo yeeraa kuwa dadka biyaha maquura oo biyaha hoos u gala oo xirfada gaarka u leh ayagaa soo saara laakiin cunugan 4 daqiiqo ka bacdi ayaa lagu soo saaray taas macnaheedu waxa way cunuga meel fog kuma jirin muxuu ahayd wuu ku dhex dhacay sambabaday biyaha ka galeen wuu ka dhex bixi waayay meeshuuna ku dhex dhacay marka okay ما يعني المملهي عنق بيو كده ويل بحالته asagaa ku dhex dhacay ciyaal yaryar oo ciyaarayay ahaayeen nabad muxuu ahayto cunuga qaar dadku waxay leeyihiin 6 jir uu ahaa qaarna 8 jir uu ahaa dhahooyeen adi cunug 10 sano ka yar ayuu ahaa saddexayna ahaayeen waxayna dhacday xilligii la afuraayay meesha masaajida u dhow cunuga ku dhex dhacay masaajidka marka 9:05 9:10 adi inta 9:05 ilaa 9:30 inta u dhaxayso waa xilliga la tukado marka salaaday ku jireen dadka oo wax cunugii dhaqso lama arkin oo lama maqlin hadhowtii muxuu ahayd Soomaali xidhi jiran xariif fandhaal maray kala dhaceen ayay dadkii banaanka u soo baxeen waxa loo yeeray muxuu ahayd booliiskii dabdamiskii loo yeeray ka bacdi ayaga meesha ka soo saaray xitaa ina news ka aragteen ma aqaanay alwaax yaraysan u gelinayaan meesha oo xitaa may dhex gelin ayaga laftirkooda meesha cunug meel fog ku sii dhex jira ma ahayn kaligiisna ma ahan wiil kaloo 17 sano jiro oo Soomaali ah asagana Hooverdown wuxuu ku dhintay muxuu ahayd muddo 2 bilood muddo ka yar oo hadda dhow ah biyuhu ku dhex dhacay wuu dhintay asagana marka ciyaalka Soomaalida biyaha ku leenooyaan waliba anaga magaalada aan deganahay hadda laba intaan sanadkan gudihiisa aan intaan ka warqabo laba cunug oo Soomaali ah ayaa waxay ku dhinteen biyaha muxuu ahayto ayay ku dhinteen qoraxda hadba mar soo baxays marna indhaha galaysaa mid kale newska bariyan soo galinaa insha Allah marka dadkii hadda oo gadaal ka soo galay su'aalaha ay weydiiyaan aan ka jawaabaya ka bacdi waa noo dhamaatay intiina gadaal ka soo gashay ciyaal Soomaali ah waxay ku dhinteen muxuu ahayto qoraxda indhaha gashay su'lami move ciyaal Soomaaliya waxay ku dhinteen meel biyo ah oo xalayto meel biyo ah ku dhex dhacay mid xal u dhintay midna ma ayaan hor u dhintay labadood midna 10 sano uu ka yaraa midna 17 sano jiray marka ani waxaan dhahoyaa ilmaha dabaasha hala baro hala geeyo muxuu ahayto wada YMCA dadka barto muxuu ahayto barnaamijyo fara badan jiro iskuulada qaarkood dabaasha waa laga bartaa meel aad u fara badan oo kala duwan adiga oo jooga wadanka adduunka ugu horumarsan wadamada adduunka ugu horumarsan mid kamid ah oo lacagan fara badnayn ay kaaga baxayso ilmahaagii ina intaad muxuu ahayd xirfad noocaas oo kale bari weyso wax cudurdaar lama ahan ilmahaagiina ay ku dhex dhacaan biyihii oo hadhowtii ay biyihii ku dhex muquuraan meeshaas ay ku dhintaan ilmo inaan jeclahay in kalun ka dhalaa loogaana bil ka hor yes sahro abayo sahra iga saxan taariikhda ma xasuusnayn waa mahadsanti abayo bil ka hor bay ahayd yes wiilka 17 jirka bil ka hor uu dhintay midna xal uu dhintay dabaasha muhiimadeeda maxaa waaye for real dabaasha muhiimadeeda waxaa way badbaado way naftaada badbaadinaysaa hadaa biyo ku dhex dhacdo muxuu ahayto biyo hadaad ku dhex dhacdo kale waad ka soo dhex baxaysaa muxuu ta biyihii kuma harqinayaan oo intay sanbabada ka galaan muxuu ahayto kuma dhimanaysid marka badbaadadaada ku xiran dabaasha mid kale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri sunno waay hal barta dabaasha sababta waa xirfad waay aan waliga ka hareynin berito newski Georgia iyo wixii toddobaadka dhacay aan soo galinaa insha Allah video aan soo galinaa live ma soo galay live iyo ramadaanka isma jecla sababtoo ah xilligan live ka soo galilaa marna taraawiixa jirto marna muxuu ahayd ana madaxa xanuunaa gaaji iyo oonaa ahaayo masaas uma hadli karo marka
yes xamdiyana waxay tiri wiil kaloo 14 jir ahaa Texas asagana ku dhintay biyuhu ku dhintay asagana marka gobol anaga kalimaas muxuu ahayd dad aad u fara badan ciyaal oo Soomaali ah ayaa waxay ku dhimanayaan biyaha aniga waa aqaana yes waliba kama xishoonaa inaan runta sheego sababtoo anoo yar ma aqoonin anoo weynaan bartay lacagaan ku bixiyay actually special lacag aad u fara badan iga baxday inaan barto sida loo dabaasho sababtoo ah berrito ma ogid meesha tagaysid muxuu ahayd dabaasho mid kale ani markaan baranayay badbaado kaliya igama ahayn gymkay u fiican tahay oo exercise markaa sameynaysid sidoo kale murqaha laga qabto haddaad dabaalatid oo kale way ku roonaanayaan murqaha oo dabaasho lagu roonaadaa therapy camal waay daawo camal therapy ay ku noqonaysaa saas aan ugu bartay markaa wixii su'aalo iigu soo dira inboxka waa ka soo jawaabaa su'aalaha laakiin intiina su'aalaha khaldan i weydiinayso fadlan ani kama soo jawaabay dadka qaar waxay leeyihiin hadhow waana dhageysatay wiila wuxuu ku dhintay dabaal marka wixii su'aalan ka jawaabaa wax yar I got 5 minutes waa ka baxaa ka bacdi haddaan ilmaha waa run siduu dhahayo maxamed jaamac ilmaha haddaan la mashquulinin qolo kalaa mashquulinaysa dabaasha haddii muxuu hayto taas different topic waaye oo topic tan aan hadda ka hadlayo ka duwan waaye anigu waxaan dhahoyaa le ilmaha lacag badan ma ahane muxuu ahayto qaaraana usoo aruuriseena haddiina lacagta haynin please ilmaha dabaala la geeyo please ilmaha yararka wax laga badbaadin karo waaye dabaasha muxuu ahayto cabdisalaan magaaladee waay magaalada oo 18 jirka ku dhintay waa maasanta abo diiniyan waaye in la barto dabaasho yes travel banki wuxuu aaday Supreme Court-ka marka waa ka hadli doonaa insha Allah weekendiga waxaan tagayaa DC aan tagay qol aan soo weydiiyay qolyaan la hadlay marka bari ay idin sheegaan insha Allah hadii la eedmo hadda cunug yara wuxuu ku dhintay meel biyo ah cunug marka taasaan ka hadlayna hadda news la sheegay magaaladan ka dhacay dad waliga ma arki waana taqaana ma sha Allah that's good for you that's mid fiican waaye wax su'aal haddaan isan jirin marka abaayo faadumo budget aan dhahday budgetka abaayo meesha degan tahay ayay ku xiran tahay meelaha ugu raqiisan oo dabaasha laga barto waxa waaye meesha la dhaho YMCA-da YMCA-da waa meelaha loogu waa maxay meelaha oo jimicsiga waaye recreational center waaye meelahaas ugu raqiisan barnaamijyo badan ay leeyihiin website-kooda galaysaa haddii xitaa aadan aqoonin meesha ay ku taalo YMCA-da kuugu dhow waxyaabaha si loo raadiyo waxa waaye telefoon aad qaadanaysaa ama computer waxaa gelinaysaa zip code-ka aad degan tahay aad gelinaysaa ani hadda meesha aan ka shaqeeyo oo kale zip code-keeda waxaa waaye 43224 marka 43224 zip code-kaas haddaan geliyo meesha iigu dhow oo YMCA-da ku taallay soo qabanaysaa kabacdi waa wacaysaa haddii aan computerka kasaysidna oo qof computerka wax ka fiirin karaa taayna computerka ayay ku jirtaa samarka waliba xilliga maanta samarka maalintii ugu horeysa waa first day of summer waaye maanta samarka waaye xilliyada waliba muxuu ahayto dabaasha la barto oo barnaamijyada ugu badan oo dabaasha ah la helo xilliga waxa waaye ee iskuulada xiran yihiin waaye xilliyada ugu badan oo dabaasha la helo abaayo waa mahadsantahay Fatima okay cabdisalaan Seattle Washington waa kan dhahoyo wiil kaloo 18 jir ah ku dhintay gabadhi kale waa tii dhahaysay qof kale waa kii dhahay Texas wiil ku dhintay labo Ohio mid bil ka hor u dhintay midna xal u dhintay waxaynu ku wada dhimanayaan biyo yar ay ku dhexdhaceen ee ku dhimanayaan ilmihii oo wax weyn kuma dhimanayaan farxaan su'aasha day su'aal khaldan ahayn yes waa li weydiin karaa cunuga wuxuu ahaa dadka qaar waxay leeyihiin 6 jir oo ahaa qaarna 3 jir oo ahaa yaal dhahooya ma aqaano wallahi Kansas wiil kala ku dhintay asagana cunug kala ku dhintay Kansas asagana oo 10 jir ah
Soomaali waa ilmaha ku dhintay ani waxaan ka hadlooyo Soomaali waa yes ciyaalka Soomaali waa kan bisha ka hor Westerville ku dhintayna Soomaali waxa kan xalay biyaha ku dhintay Soomaali waxa dadkan kale taqaar waa taxi sal dhahooya Kansas sal dhahooya muxuu hayto siyaara la dhahooya kulli ciyaalka meelahaas kooda dhimanayo oo biyaha intay ku dhexdhaceen ka soo dabaalan waayo ka dhex bixi waayo biyaha yarqiyaan oo qaadeen muxuu hayto biyaha ku dhimanayo waa wada Soomaali ciyaalka laga hadlo yes Soomaali waa yes xasan wuxuu dhahoyaa Texas xaafadayna 2015 kii laba cunug oo kala ku dhimatay ayagana oo muxuu ahayd oo biyaha ku dhinteen yes I did I'm working on it TV in a presenter yes ha okay عبد الحليم wuxuu dhahay cunuga Westerville ku dhintay Ramadaankii ee so bil ka yaraaba laga jooga asagana last year cunugaasna buulka ku dhintay Minnesota ilmihii marka meel walba gobol kasta oo la geeyo biyuhu wadankan biyuhu swimming poolka kaliya ma aha badda kaliya ma aha meel weyn kaliya ma guryaha waa lagu sharaxaa biyaha xaafadaha badankood hadaadan muxuu aad degan tahay waliba xaafad fiican hadaad degan tahay oo meel biyo xaafadaha biyaha ku wada yaalo kulligood baanay wada leeyihiin oo war yaray wada leeyihiin kulligood warta guryaha waa lagu qurxiyaa muxuu ahayd waxyaabo kale oo fara badan ay tartaa warartaas waa warta ilmaha ku dhamaanooyaan iyo swimming poolada sababta cunugii saaxiibadiisa ka celinaysa saaxiibadiisu raacayaa islaan waa yeelahay waalidkay ma joogo waalidiinta way baran karaan yes ayaga laftirkooda inay bartaan muhiim waay laakiin hadda waxa la isku haysto saqiirka waay saqiirka hala baro dabaasha fadlan oh thank you abo ma santa way jiraan xitaa dadka dhalinyarada ah oo summer jobs ka shaqooyinka raadinayo waxa jiro muxuu ahayd dabaasha qofka xitaa asaga intuu barto Soomaalida laftirkooda luqadu ma baahna dabaasha waa qaana dadka badankiis waxyaabaha shaqooyinka qaar uga cararaan waxa waaye luqada waa fahmi karaa oo buugaagta wax lagu qoraayo wax lagu baro Ingiriis way laakiin citizenship-ka waa barataan oo muxuu ahayd markii waraaqaha cayrta ay soo dirtaba waa la akhriyaa maxay kuwa bangiga laga keeno waa la akhriyaa maxaa marka tan wax weyn ma ahane hadaad aqoonin waa la xarbinay waa qoreysaa waa ku celcelinaysaa kabacdi waa baranaysaa wax saas u sii adag ma ahan gabar hadaay ku jirtay waxay tiri 3 sano laakiin ani age hebel ku bilaabay idin ma dhahooyay waxa weydiisaan dadka ku takhasusay dada ku takhasusay qolo walba waxba la weydiiyaa dadka weydiiya waa idin soo raadin karaa exactly xilliga ay tahay habeen dambaan ku soo daraa insha Allah xilliga su'aal yes wixii su'aal qabaan weydiinaa ma baarkin bu su'aashaada Donald Trump yaa u tagana Donald Trump uma tagnane qoliyo kale u tagay dabaasha waa idin soo sheegaa barito xilliga ugu horeyso lagu bilaabi karo inay ciyaalka dabaasha bartaan ma aqaano inaan lambar khaldan idin siiyo ma rabo maxamed jaamac su'aashaada go ahead yes maxaa way su'aashaada yes hooyada muxuu ahayd 5 is the best 5 maxay best ku tahay 8-month old ay dhahoosaa Faato Maxamed lagu bari karaa ciyaalka muxuu ahayd dabaasha naft dantaada ku jirto ilmaha biyaha inta idin kaga dhaxaan idin kaga wada dhimanayo marka muxuu ahayd hadda ciyaal ayaa every school have the program swimming but Somali lama ayo because they scare iskuulada badankoodna way leeyihiin swimming programs yes ciyaalka way leeyihiin iskuulada swimming programs qaarkood muxuu ahayd recreational center meelaha jimicsiga oo xaafadaha ku yaala oo muxuu ahayd recreational center af Soomaali maxaa lagu dhawaabay looba
kuwaas xitaa muxuu ahayto waa lagu bartaa dabaasha oo waa la waliba xilliga samarka buuliyaasha xiran xilliyada kale waa la furaa samarka no America ilmaha 8 jir no ka yaraa lagu baraa ilmaha dabaasha way idin dhamaatay marka maxamed su'aashi weydiiyay xilliga afurka la gaari rabaa ana arkay 8 months old ilma yiriisan wali soconin oo dabaasha la baro dabaasha gacmaha ilugay ku xiranta inuu istaago muhiim ah laakiin idin ma dhahayo xilli hebel aad bari kartaa aniga sababtoo ah ma aqaano qof waxaan soo weydiinaa dadka khibradda u leh Cabdirasaaq thank you from Toronto yes recreational center meelaha lagu tababarto waa mahadsantahay thank you saa igu saxde haye Cabdisalaan su'aasha abu soo sheeg maxaa waay gaaja igu diribtiina umaleena haddii that makes sense haddii la dhahu yiri wiilkaas lacagaa laydin siinaa muxuu hayta dadka qaar way fiirin lahaayeen dambi ma ahan oo dambi laakiinse ilmahaaga badbaadadooda ku jirto quraanka iyo akhlaaqda iyo iskuulka maxaa u bartaa inay Chinese heshaan soo ma ahan dambi ma ahan no actually sunna waayaba inay bartaan cunuga wuxuu ku dhintay xalayto biyo taasaa dhacday haye Cabdisalaan maxaa waay ilma yarka haduu diidaa ilmahaada dhalay ilmahu like saqiir waaye muxuu ay taduu ka baqi xitaa ilmaha la hadal you think ilmaha hadii la tashanay inay iskuuli dugsi aadi lahaayeen habeen walba wajiifi lahaayeen kuwa kale waa la geeyay ilma yariisa la tashtaa dantooda ku jirta mid kale waxa laga yaabaa inuu intuu si fiican u barto Soomaalida muxuu ahayto xagga jimicsiga iyo athleticism-ka aaday ugu fiican yihiin ilmaha hadii la baro dabaasha waxa laga yaabaa inuu ilmo dabaal ku tartami karo uu noqdo hadhowtii yes dabaasha rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dabaasha hala barto is very true sunna waay way daalinayaan I know dadka qaarkiis timalaan waxay su'aal uga jawaabi karaan uga jawaaba hal maran ku celinaa waa dul maraya ka bacdi waa ka baxaa wiil xalay wuxuu ku dhintay muxuu ahayto meel oo war ah oo xaafada ku taasho wiilkoo kalena ramadaanka bilowgiisii bil ka hor camal adi bil muddo camal wiil kale 17 jir asagana wuxuu ku dhintay biyo Westerville midka kale xalay dhintayna wuxuu ahaa 10 sano uu ka yaraa dadka qaar waxay dhahooyaan Texas ilmaha ku dhintay muxuu Seattle qaar ku dhintay Minnesota waa tiibulku wuxuu ku dhimanayay muxuu ahayto Kansas kuwa kala ku dhintay ciyaalkii Soomaalida ahaa tarabay ugu looynooyaan biyaha waa ku dhamaanooyaan markuu muxuu ahayto ay carraan biyo arkayaan biyo yar ay ku dhexdhacayaan ilmihii biyihii ku dhamaanooyaan marka people fadlan ilmaha dabaasha hala barto dabaashu waa xirfad waligood intay nool yihiin la soconaysa sidaad muxuu ahayto iskuulka ugu dadaashaan iyo dugsiga iyo akhlaaqda in aad barto ay muhiim ugu tahay ayay tanna muhiim ugu tahay sababtoo ah cunuga yarka ayay badbaadinaysaa ma ogid adi ilmaha muxuu ahayto indhahoodii ma tihid hadduu wartoo kale uu ku dhex dhaco si uga soo dhex baxo dabaashu aad bay muhiim u tahay ilmaha dabaasha hala baro afur wanaagsan ciid wanaagsan intiina muxuu ahayto haddaan ilooba berrito midda kale barnaamijkii toddobaadlaha ahaa berri idin soo gelinaa haddii aan la idmo habeen wanaagsan